Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaaleyga qaaliga ah dhammaantiin waa idin salaamay waa walaashiin Uma Haaruun iyo mar kaleetood please kanaalkayga hadaa ka hesha subscribe laagta commentiga dhiirigelinta waa xaggiina maanta waxaa inoo wadaa qiso cajiib ah qisadaas oo la magac baxday gabadhii uurka beenta ku qaraabanaysay qisadana waxaan dhageystay shalay maxkamad socota ka dhageystay qiso dhab ah waaye marka qisadana sidan ayay ku bilaabanaysaa nin ayaa jiray ninka xaas ayuu lahaa asagii xaaskiisu isku faraxsanaayeen adiga markay sanado isqabeen waxay ku fakareen inay awlaad dhalaano caafimaadka dhinaciisii aadeen dhinaca caafimaadka markay aadeen waxaa la soo ogaaday naagta inay cilada tahay oo dhankiisa asaga uu caafimaad qabo haddana wuu la sii noolaaday gabadhii maadaama uu qofkan lagu yiri waa caafimaad qabtaa jirada adiga ma tihid xoogaa wuxuu is yiri ama wax raadisaa wax siyaado ah raadisaa gabadhii oo isku dhaceen adiga gurigii buuq markii oo buuqiisa dhammaan waaye mar walba isku dhici jireen gurigii ka tagay markuu ka tagay guri familigiisa ah ayuu tagay laakiin asaga guri muusan kireysanin oo toos uma kala guurin oo weli nini naag waaye laakiin guri asxaabtiisa iyo ehelkiisa tagay markuu tagay guriga agtiisa waxaa degan gabar yar oo adiga gabdhahan 20 dhowrka jiro oo iska shaqaysato nolosheeda ku filan daris la ahayd gabadhii isbarteen gabadhii 3 bil la noolaay 3 bil kadib wuxuu ogaaday ninkii inuu xaaskiisii jecel yahay xaaskiisii hore inuu jecel yahay ogaaday gurigiisii ku soo laabtay marka xaaskiisii ku soo laabtay maalin sidee tan u sugaysay telefoon loo soo diray wuxuu ku yiri walaal iga raali noqo aniga xaaskeygan jeclahay aan u laabtay gabadhii marka madaxa xanuunay waxay istiri ninka oo jeceshahay naagti oo isku soo dhaceen oo ku laabtay ma aha way u fakartay waxay ku fakartay inay uur beenash uuran leeyahay inay tiraahdo uuran leeyahay tiri 3 bilo u horeysay lacago oo soo diraya uuran leeyahay maxaa u baahan tahay maxaan ku siiyaa intaas isii adee lacag uurkiiba lacag ay ku hesho gabadhii markii dambe 3 bil u horeysay markuu xisameyn jirtay sawiro yar oo waxa jiro ilmaha oo laga soo qaado computerka la saarayo sawiradaas ay ma aqaan ma google ka soo bixisaa meel ay ka keento ma aqaan uu yiri sawiradii u dirta waa kana maanta balana lahay sawirkan la iga soo qaaday arag hay aan ku imaado maya waa ka tagay meeshiyo hooyaday oo magaalo kala degan aan la jooga hadda maalin marka aan ku imaado ku yiri address u soo dirtay addresska hooyadeed ninka marka ha ii imaanin way tiri jaa addresskiina u soo dirtay addresski marka meel uu ku qortay gabadhii waxay samaysay way carartay calool feegay soo gadatay sida filmaanta oo kala naaga markii uurka leeyahay calool feega loo xiraa calooshi feegay 200 euro kala soo baxday guriga dhigata caloosh marka step maanta 5 bil tahay 5 bil caloosheeda camal xiranay 8 bil caloosheeda camal xiranay sawir iska soo qaaday dhaq u diray waa kaasa ninkii wuu ku sii farxay maalinta dambe naagtiisa u sheegay markay 8 bil uurkii maraayo oo bil u dhiman tahay oo xaaskiisa u sheegay wuxuu ku yiri aniga inta ani adiga kala maqneen gabaraan bartay gabadhina uuray leedahay saas u ogow xaasku waxay tiri waa arin lagu farxo haddaa dhalaysid ubad oo dhacaankaaga ah oo dhiigaaga ah ee orodo garab istaag xaalad xun ay ku sugan tahay waayo yiri addresski uu qori jirtay intee adiga walac beenta sheeganaysay oo meel ku qortay oo la soo baxay wuxuu is yiri ha u sheegin sabarays ugu tagaa ku farxday diyaarado soo qaatay gobolka marka labada gobol ay kala dheeriyiin hal wadan isla deganaayeen diyaarado soo qaatay gobolkii ayada deganeed oo kasoo degtay addresskiyo gashtay dhag gurigii albaabkiyo gargaraaca gow maamadii oo waxa ka furtay oo gabadha uurka beenta sheeganaysa dhashay albaabka ka furtay markaas wuxuu ku tiri yaa waa adiga hebelaan ahay hebelkee ee cunuga dhalan rabo aabiisa ahay cunugee gabadha hebel lama dhaho haa gabarteeda waaye ee gabadhaada uur ma laho maya uur ma lahan marka dab maamadii soo galay tiri gudaha hore u soo gal gudihii soo galay markuu soo galay maamadii asi waxay go'aan ku qaateen in qolkeeda la baaro qolkeedii markii la baaro waxa laga helay calooshii feega ahayd calool feegay soo gadatay inay uur leedahay ka dhigayso hooyadeed lama oga sirta
saaxiibadeed lama ogo qafna lama ogeyn ninkan bas ay ku rakaateen jirtay ee lacag uga qaadan jirtay lacag cadadkeeda gaarayo 11,000 oo euro iyo jajab adiga 12 euro ma dhameynin way ka yareed ee ka qaadatay 8 bil gudahooda 8 bil gudahooda inta lacag uga qaadatay maxkamadii marka waxay go'aan ku qaadatay maadaama ninkii niyada ka dishay oo nin awilka horena ilma raadis ahay uuran ku leeyahay tiri ee lacag uga qaadatay gabadhii waxaa lagu ganaaxay 30,000 iyo lacagtii ay cuntana waa loogu daray adi 41,000 camal laga qaaday 41,000 iyo jajab alir waa inaa bixisaa qasab waaye because waxay sameysay wax qalad ah way turfatoreysay qisadina intaasay ku dhamaatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.